duufaano dibadbaxyaal ah ayaa weli ka socda magaalooyin waaweyn iyo gobollo kala duwan oo Maraykanka ku yaal waxayna galeen maalintii shanaad dibadbaxyadani oo ka dhashay dilkii George Floyd loo geystay oo ahaa nin madow oo askari cadaan ah oo si kama ah uu dilay. Waxa dhacay khasaaro iyo boob hantiyeed oo aad u fara badan. Duqa magaalada Minneapolis ayaa dalbaday ciidamada militariga ee dalkaas maadaama xaaladda ay marba marka ka sii dambaysa ay sii tirayso. Barasabka magaalada Minneapolis ayaa sidoo kale sheegay in waxa haatan ka socda magaalada Minneapolis ay xasuusiyeen waxyaabihii ka dhici jiray Muqdisho iyo Baghdad. Ilaa 30 magaalo oo ka mid ah dalkaasi Maraykanka ayay mudaharaadyadu haatan ay ku faafeen. Los Angeles ayaa waxaa laga soo warinayaa in gawaari ay booliska lahaayeen in halkaasi lagu gubay, halka Atlanta iyo Philadelphia iyagana lagaga dhawaaqay bandow si mudaharaadyada rabshadaha wata loo xakameeyo. Madaxweynaha dalkaasi Maraykanka ee Donald Trump ayaa xaaladda haatan ka taagan dalka Maraykanka ku eedeeyay kooxo isku abaabulay dhacaya boob oo ay dabada ka riixayaan buu yiri kooxaha ay siyaasadoodu tahay bidixda fog. Chauvin oo ah askarigii qoorta ugu istaagay George Floyd isla markaana loo haysto dilkiisa ayaa la xiray gelinkii dambe ee Jimcihii aynu soo dhaafnay. Waxaa la filayaa in maxkamad la soo taago Isniinta fooda inagu soo haysa isla markaana dad kale loo qabto dilka ninkaasi, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha deegaanka Hennepin ee Michael Freeman. Xafiiska xeer ilaalinta ayaa sheegay in uu hayo caddeyn muujinaysa in Chauvin uu ninka dhintay jilibka qoorta ugu hayay muddo 8 daqiiqo iyo 46 ilbiriqsi ah, taasoo 2 daqiiqo iyo 53 ilbiriqsi oo ka mid ah uusan nuuxnuuxsanin Floyd. Wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi Maraykanka ayaa si aan hore loogu baran ku amartay ciidamada dalkaasi in ay heegan geliyaan cutubyo ka tirsan booliska militariga ee dalkaasi si haddii loo baahdo ay gacanta ugu dhigaan xaaladda Minneapolis. George Floyd oo ah nin madow ah oo da'diisuna ay ahayd 46 sano jir ayaa Isniintii aynu soo dhaafnay geeriyooday, waxaana baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya nin boolis cadaan ah oo luqunta jilibka kaga hayay Floyd. Muuqaal 10 daqiiqo soconayay ayuu ka duubay qof dhacdadaasi goobjoog u ahaa, kaas oo uu ka dhex muuqdo Floyd oo ay naftu hayso oo ninka booliska cadaanka ah ka codsanayay kuna celcelinayay, "Waan neefsan lahay ee fadlan jilibka iga qaad."